markay soo dhowdahay afuufidda suurka qiyaame wuxuu alla weyne soo dirayaa dabayl ama riixaan aad u macaan wuxuuna riixaasi alla weyne amrayaa inaysan kaga tagin dunida dusheeda qof qalbigiisa ay ku jirto wax yar oo iimaan ah oo la eg quraansho maxaa yeelay marka ay qiyaamaha dhacayso waxaa iskugu soo haraya dunida inta ugu dullisan uguna sharta badan qalqiga uu alla abuuray oo idil intaasi kadib wuxuu alla weyne malagga Israafiil amrayaa inuu afuufo suurka koowaad waxaase markaasi dhimanaya wixii dhulka iyo cirka ku sugnaa intuu alla weyne doona mooye sidaasina waxay dunida ahaan doontaa 40 sano oo kaamil ah korkeeda kuma sugnaan doono qof nool wallaahi kuma sugnaan doono korkeeda jinni iyo insi iyo malagba ilaa aan ka ahayn alla weyne dhammaan dadka oo idil waxay ka hoos mari doonaan ciidda ma jiri doonto maalintaasi Maraykan ruush ingiriis jarmal soomaali sacuudi iyo wax walba oo la mid ah maalintaasi markuu alla weyne ka dhigi doono dhulka si aan horey loo arag wuxuu malakul mawdku ku dhihi doonaa alla weyne malakul mawdow ayaa soo haray oo qalqigayga ka mid ah insaankii waa ay dhinteen rabbigaygiyow jinnigiina waa ay dhinteen dhammaantood malaa'igtiina waa ay dhinteen rabbiyow dhammaantood waa ay dhinteen malaa'igtii insigii iyo jinnigii iyo wax waliba oo cirka iyo dhulka ku sugnaa waa ay dhiman doonaan maalintaasi ilaa aan ka ahayn malakul mawd markaasuu alla weyne weydiin doonaa malakul mawd ayaa soo haray oo qalqigayga ka mid ah wuxuu dhihi doonaa ilaahayow allow waxaa soo haray jibriil mikaa'iil israafiil iyo weliba aniga addoonkaaga ah hortaada taagan markaasuu alla weyne ku dhihi doonaa malakul mawd ka qaad nafta jibriil malakul mawdow markaasuu ka qaadi doonaa markaasuu alla weyne ku dhihi doonaa yaa soo haray markaasuu ku dhihi doonaa mikaa'iil iyo israafiil iyo aniga addoonkaaga ah markaasuu alla weyne ku dhihi doonaa ka qaad nafta mikaa'iil malakul mawdow markaasuu ka qaadi doonaa markaasuu alla weyne haddana wuxuu ku dhihi doonaa ka qaad israafiil nafta malakul mawdow markaasuu haddana ka qaadi doonaa markaasuu alla weyne jalla jalaaluh wuxuu weydiin doonaa malakul mawd cidda soo hartay markaasuu ku dhihi doonaa ilaahayow aniga addoonkaaga ah oo malakul mawd ah ayaa uunkaagii oo idil ka soo haray markaasuu alla weyne ku dhihi doonaa dhimo malakul mawdow adigana dhimo malakul mawdow dhimo